بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا علي الشرحيري ولا الله صوماليات مال كستو أدون كاتك جوكتان أدمن إذن سلام يا وحان ربعنا إن لو ذاقو أرين فضيحات تاغن وصوجرينة إدادك كشغي فضيحات إيقا إنا نولي بقان كلا سارة فضيحات إيدح فديان هذا وبرتينان channel كينان شرحيري cid kastoo video waa aragta sidii u gaarto nimanka iyaga ah shar ku qabta filo Soomaaliya ugu gasho waxyaabaha inaan ka hadla aan rabaa marka waxa kamid ah ee fadeexada ah dhalinyaradii Soomaaliyeed laga waday wadanka Eritrea la geeyay Eritrea ay ka qayb galashay dagaalka ay ka qayb qaadatay Tigray dhalinyarada iyaga ah waliba hadda ku social media haysta ka soo jeeda jamhuuriyadda barakaysan nimankan siyaasiyiinta Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya waa nimankii xaasidnimada la fadhiyay Soomaaliya oo rakaatada ku hayay jamhuuriyadda barakaysan iyo ixtiraafkeeda iyo meesha la fadhiya waxaan la sheegi karin haddaba maanta waxay marayaan in dhalinyaradii ayaga u tagay ee calanka buluuga ah xirnay ee la soo dhaweeyay in Muqdisho laga kaxaysto lagu tuuro Eritrea iyo meelaha kale tababar loo geeyo la yiraahdo halka ka wado arinta iyada ah dhibaatada ay maanta ku hayso bulshada Soomaaliyeed sharaf xumada maanta ay nimanka ayaga dhex fadhiyaan hadii niman xisaabtamay hadii yihiin waxa ay wax labada dib uma sameynayaan warwaad ogtiin Somaliland ixtiraafka inta maanta aad rakaatada aad ku haysaan hadii aad faraha ka qaadi lahaydeen ciidan taakuleen wax walba hadda Djibouti oo aragtaad ka qaadataan taakulo ciidan ee aad ka heshaan Somaliland oo ka population badan oo ka ciidan badan miin ka heli lahayn waad ka heli lahaydeen ayagu waa walaal inta maanta waxa aad ku soo sameeyeen hadiina ku sameyn lahayn maanta hiliyaha wax walba iyaga in garab istaagi lahayd haddana waxaad bilowdeen ayagoo sida iyada ahay oo rakaatada aragti ku sameynayay dhalinyarada iyaga ka soo jeeday ee adikeedu kugu imaaday inaad soo dhaweysaan inaadna Eritrea meelaha aad ka tuurtaan waa fadeexad waa arrin aan waliba la qaadi karin maskaxdeeda aniga arrinta iyada ah baaritaan baan sameeyay maskaxdeeda way qaadi weysay ragga iyaga ah waxaan leeyahay oo waliba waa mas'uuliin qayr mas'uuliina hatta mas'uuliin ma qayr mas'uuliina oo ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo waalidka dhalinyarada iyaga ah dhalay xagee maanta maxay kula hadlayaan maxay ku sameynayaan uqabada iyo habaarka ay soo jiitaan bal eegadi hore loo yiri xaasid maay aflax waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dhalinyarada arrintan aniga hadda aan ka hadlaya baraarujinta in xaqiiqada laga hadla oo runta laga hadla arrintan in runta laga hadla aniga aan ka hadlayo qof kasta ee dhalinyaro ah ee barnaamijkan aan ka hadlayo ugu taageeraya waa in uu shakhsiyadiisa uu ka hadla social media soo galo oo ka hadla xaqiiqada waxay tahay ka hadla xaasidnimada ay la fadhiyaan meesha nimanka ayaga ah Soomaali inaysan wax ayaga ah dan u ahayn Soomaali inay dan u tahay inay iskaashadaan ayagoo laba dawladood kala ah wayna oglahay Somaliland xilliga ay Soomaaliya ku darsatay 1960 wayna ognahay inay ku darsadeen Soomaaliya markii ay xorriyadda markii ay qaateen 1960 markii xorriyadda qaateen oo gumeystii Ingiriiska ay ka qaateen ayay ku darsadeen ayagoo markaas galgacayl walaalnimo iyo Soomaalinimada markaas waxa ay tahay ay ku weyn tahay maantana dhibkaas ay waxa la leeyahay xilligaas ay Somaliland waxay ahayd dawlad ixtiraaf leh oo aqoonsi adduun caalamka dhan uu aqoonsan yahay haddana annaga waxaan iraahnaa jamhuuriyaddii iskeeda isku magacaawday maanta heerkaas ay marayaan haddaba waxa iyaga ahay rag ay dhibka aragti loo geystay oo arrimaha waxa soo dhan lagu soo sameeyay haddii dhalinyaradii ayagii ka soo jeeday haddana lagu sii heesto meelaha laga sii qabsanayo waa fadeexad war iscaabsada
dowladdan kolley waa gabagabo waxay horta dowladdan soo samaysayba wax la qaadi kara ma aha, wax la dhegaysan karana ma aha. kolley kuwa kaloo ku xigana waa arkaynaa. waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan videogan aad dhegaysataan, videogan share ku qabta, linkigan yarka ah nimankaas ha gaaro, ceebtooda aan u wada istaagno, nimankaas ceebtooda aan nimankaas tusno, nimankaas dhibaatada iyo waxa ay Soomaalida ku hayaan maanta bulshada wax u dana ma aha. aan ka soo horjeysano arrinka isaga ah. qof walbo Soomaali ah waa wuxuu ka danqanay maanta waalidkii ilmaha ragga ku dhintay Eritrea dagaalkii ay Tigray ku qaaday. qof maanta damiir ahaan qof walba qof damiirkiisa qaadaya ma jiro, qof maanta raalli ka ma jiro. waalidka dhibaatada loo geystay in u wada istaagno, ayaga ka mas'uul ah, qeyr mas'uuliintaas mas'uul ka ah arrinta ayaga loo daba istaagay. dhibaatada kale oo adana dowladdan Farmaajo ay geystay waxyaabaha ka mid ahay maanta aan maskaxiyan wax la qaadi kara aanan ahayn waa waxa ka mid ah dowladdii kacaanka Maxamed Siyaad Barre xilliga dhibaatadii ka dhacday loo geystay walaalahan Somaliland milyan iyo ka badan waliba ay aga dhinteen. baa waxaa jira canugii xilliga ayada dhashay maanta 30 jir ah, waxaa laga yaabaa inuu waxba ka ogaan arrinkii iyaga ahay oo wixii iyaga la ilowbay cid maanta wax isku dawraacaysa aysan jirin, oo shalay wixii Soomaalinimada la isku raacay haddana ay ku iloobeen wixii gaaray buu dib u soo celiyey arrinka isaga ahay. waayo hadda doorashadiisii markii la dooranayay Somaliland waa laga taageerayay Farmaajo, maantana waa loogu necab yahay. sababta kaliftay waa waxyaabaha uu sameeyey, waa xumaanta uu ku beeray wixii hore u dhacay dadka maskaxdooda inuu dib ugu soo celiyo xasuus waxyaabihii soo gaaray. wax ka mid ah ayuu sameeyey, waa xaqiiq. waxaan u sheegayaa arrinka isaga uu sameeyey bulshada Soomaaliyeed annaga kuma qanacsanin. waliba waxaynu nahay dad saliim ah, waliba beesha uu ka soo jeeda beesha Mareexaan ma ahan dad xun. Mareexaan waa dad fiican oo Soomaalinimada iyo walaalnimada sida ay ku yihiin cid kasta ay og yihiin, laakiin shakhsiyaad xun wala laga helayaa. taas qof walba qabiil walba waxaa laga helaa shakhsiyaad aanan fiicnayn. haddaba waxyaabaha uu geystay dowladdiisa waxa ay geysatay Farmaajo, madaxweyne Farmaajo dowladdiisa waxyaabaha ay geysatay waxaa ka mid ah hadda tusaale ahaan aniga hadda isaga macaarid kuma ahi, waxaan ahay aniga siyaasad kuma jiray. arrimahan waxaan aga hadlayo waa xaqiiq, okay. haddaba markaan idin sheego isaga maanta hadda maamulkiisa iyo ciidamada iyo maanta waxyaabaha ay ka sameeyeen baled xaawo dagaalkii ku dhex maray ninka la yiraahdo Cabdirashiid Jalan ka soo horjeeday dowladda Soomaaliya oo weerar ku soo qaaday xalay degmada baled xaawo lagu jibiyey. arrimaha ay sameeyeen oo ay ku guuleysteen dowladdiisa aad baan u taageerayaa oo kana soo horjeeday waxyaabaha uu sameynaya. wax ka mid ah waa okay, laakiin arrimaha uu ku soo sameeyay dowladdiisa intii ay shaqeynaysay Somaliland marraba qof kasta ee dameer leh wax uu qaadan kara ma ahayn. siyaasadda xun oo ka saaray dhankan Somaliland arrin aad u qaldan bay ahayd. haddii uu siyaasiyiintiisii isaga wixii isaga la shaqeeyay wixii isaga hawsha la wado dhan arrin qaldan bay aad iyo aad macnaheedu arrinka isaga ah ay ku soo dhaqaaqeen oo ahay. waxaan leeyahay waliba xataa aan meeshan fariin kale aga sii diraya macaaradka hadday ku guuleystaan doorashada Soomaaliya, dowladda Farmaajo waxa ay soo sameeyeen iyo sameeyeen iska ilaaliya ceebta iyada ah si horumarkiina iyo higsigiina u balaarta. Somaliland ay ha ku sameeyeen dowladda Farmaajo waxay ku soo sameysay iyo xaasinimada waxa ay kula soo dhaqanta. aad baan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.